ما شاء الله aad baan ugu faraxsanahay nabadgelyada magaalada aad bay u fiican tahay sida qoryaha looga urushay magaalada Muqdisho amniga dalka wuu soo noqday anigana aad baan ugu faraxsanahay awal habeen ma shaqeeyay hadda habeenkii baan shaqeynaa anigoo mootaala ah marka waxaan leeyahay jaala farmaajo madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha wax qabad fiican baad qabateen hadaalnina Soomaaliya way bislaatay 27 sano dawladaan baan ahayn hadda ku meel gaar waa ka baxnay dhalinyaro ayaa wadinaya dalka qabsaday annaga haddaan dhalinyaro Soomaaliyeed nahay gaar ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho ka xamaalata aad baan u soo dhaweynaa nabadgelyada xamar waa fiican tahay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة رمضان كريم بابا رمضان الكريم كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير حقيقة كتبت ما انت كسو أديقتي وعان كسو أديقتي عمرويني هاي وعانا كسو عم بحي وذا جر سيف يعني كورن حمروينة أديق سوق نبتقليدة كورن مقالة ما انت والله واحد يبقى عن السوق كلنا مجر سيفي عن أنتو أديقني هاي الحمد لله إله ما داز استلقي رمضان كفلقيس ويجوغا أصو هاي واحدة وطنك ها كورن واسو جوغي قرب جوغنا واسو نقضي وطن كان واجوغ واحدة وابا كل شيء دور ما كسو لابت هذا وطنك والله waxaa aan ku soo laabtay 2000 haddana waan naqday 2000 iyo 4 aan ku soo laabtay طبعا حالات بلد kala duwan iyo marxalado wadanka mar walba soo maray waa la socotay hadii aad banaanka joogtay hadii aad gudaha ku sugnay si fiican ayaan ula socday marka isku midna ma ahan marna hoos marna kor macnaha waxaan ula jeedaa marna waa la degan yahay marna waa la kacsanaa si fiican alxamdulilah dhibna waa soo aragnay dheefna waa aragnay hadda waxaa la sameeyey ciidamo ka shaqeynaya xasilinta amniga sax waa sidee u aragtaa ciidankaas iyo hawsha ay wadaan والله dadka soo horjeeda waa jiraan laakiin wixii amni ka shaqeynay ummadoo dhan aa wada jecel weerarta waxa loo joogaa waa amni wadan aan jirinna nabad ma ka jirto marka nabadda cid jiidaysa ma laha in laga shaqeeyna dadkoo dhan aa wada jecel laakiin inkastoo dad ay ka soo horjeedaan aysan amnigaba ay rabin dhibkaas in lagu noolaado ay jecel yihiin laakiin amniga waa lagama maarmaan magacayga cabdiraxmaan cabdullaahi xasan عبد الرحمن waxaa kamid tahay darawlada xakaxaya gaadiidka bajaajka waa kamid ah ka waran dhaqdhaqaaqa nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo isbedelada ku yimid dhinaca nabadgelyada maanta والله الحمد لله شكرا boqolkiiba boqol nabadgelyada waxaa ka yimid boqolkiiba boqol waxaa ka yimid maaragtay isbedel weyn baa ka yimid ammaanka aad u fiican yahay ma garatay waxaan ku shaqaysanaa si nabadgelya waxaan ku soo kacnaa si nabadgelya alxamdulilah shukr bilcaalamiin macnaha askartaana dhibi jirta waagii hore askarta qori wejiga afka kaa gelinayaan waa ku dhibaayaan sida hore ma jiraan hadda qori lama arka maasha allah maasha allah nabadgelyada sida hore markii hore ciidamo oo dariska ciidamada dawladda ku labisan ay dhibi jiray na dhici jiray wax walba nagu sameey jiray maanta ka waran magaalada mubaarkaysan maya ma jiraan waagii hore inta lagu soo raaco oo mootada gadaal lagu soo fuulo lagu dhici jiray hadda ma jiraan waxaas wax qori ma aragno wax askari ma aragno oo na dhibo alxamdulilah dhamme axmed maslax oo ah taliyaha qaybta ciidanka militariga ah ee qaybta ka ah howlgalka xasilinta amniga caasimadda ee Muqdisho oo aan kula kulmay mid kamid ah goobaha maanta howlgalka uu ka soconayay ayaa ka waramaya sida howlgalkaas uu u socdo iyo sida ay dadweynaha gobolka Banaadir ay ula shaqeynayaan ciidamada ammaanka inta kadib sida ogsoontiisa dhawaan waxaa la hirgeliyay ciidamo lagu magacdaray ciidamada xasilinta amniga kuwaas oo ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida aad ogsoontihiin markii la aasaasay waxaa wax weyn iska bedelay xaaladii amni ee caasimadda waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in howlaha loo idmayo ciidamadana ay sii laba jibaari doonaan ayna gudan doonaan waajibaadkoodii iyo waxyaabihii shaqooyin marka iyaga ay loo idmayo maanta ka waran meelaha howlgalka uu ka socdo maadaama taliyihii militariga ee qaybta xasilinta ciidanka isku dhafka u qaabilsan aad tahay howlgallada meelo ka socda faahfaahin laga sii howlgallada wuxuu ka socdaa dhammaan qaybaha kala duwan ee caasimadda waxaana ay tahay waajibaadka ay qabanayaan ciidamadani wax allaala wixii looga shakiyo xaaladda amniga iyo waxyeelada shacabka in ay gacan bira ku qabtaan si shacabka looga fogeeyo in waqtigu uu soo gaaro sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga axmed carab ayaan la kulmay xilli lagu sii dhow yahay waqtiga afurka magaalada Muqdisho isaga oo sharaxaya sida ay ciidamadu ugu diyaar garoobeen sugidda nabadgelyada waxa uu ammaan iyo bogaadin u jeediyay ciidanka isku dhafka ee ka shaqeynaya howlaha xasilinta amniga magaalada Muqdisho
ugu horreyntii waxaan mahad celinayaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka ah ay say u sugayaan amniga ay ku dheehan tahay Soomaalinimada waxaan u mahad celinayaa shacabka caasimadda ku nool iyo darawallada say maaragtay amarka buuxdo oo ama wanaaga ama amniga say ciidanka u sugayaan anagana geeskooda ugu sugayaan maanta howlgalka wuxuu ahaa howlgalladii socday muddooyinkan Ramadaanka ah wuxuuna ku wajahan yahay howlgalkaas waxaa laga ilaalinayaa dalka iyo dadka iyo diinta kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano cadowga ah ummaddan Soomaaliyeed damacsan bisha Ramadaan inay baabi'iyaan laakiin waxaa u taagan ciidanka laamaha amniga kala duwan dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda 24 saac u taagan qorraxda u taagan roobka u taagan dhaxanta ee inay sugaan shacabka Soomaaliyeed amnigeeda iyo dowladda amnigooda inay sugaan ayaa ugu mahad celinayaa maantana wuxuu ahaa howlgal ka dhana cadowgaas sidii amniga magaalada Muqdisho uu gacanta ku soo gali lahaa cadowgaasna laga baabi'in lahaa dalka iyo dadka iyo diinta